dhegaystayaal maanseyahanadii soomaaliyeed ee magaca dheer lahaa gabayadooda qaarkoodna kaga calaacalay gabowga iyo had iyo jeer dhibaatooyinka ku mataansan waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa salaan carabey oo lagu wado bartamihii qarnigii 19 inuu dhashay. wuxuu ahaa nin reer miyi ah oo haddana reer magaal ah, nin sadcaal badan oo dalka dibaddiisa muddo dheer ku noolaa, isaga oo mar ganacsado ahaa, mar kale faranjiga turjubaan u ahaa, intaas ka hor bana ka mid ahaan jiray shaqaalihii Soomaalida ee maraakiibtii dhuxusha ku socon jirtay feermaanada ka ahaa. 1897kiina wuxuu ku jiray raggii inta soo dalmariyey Nairobi keenay dhulboobihii Ingiriiska ahaa ee Lord Dalamiya la oran jiray, kaasoo loo aaneeyo magaalaynta Kenya iyo horumarinta hanaanka beeraheeda. Caddaankii, Hindigii iyo Carabtii uu la shaqaysan jiray ayuu afafkoodii wax ka bartay. taasina waxay geysiisay inuu ku dhiirado gabayadiisa qaarkood inuu ku daro erayo shisheeye oo afafka uu ka soo amaahday. waxay ahayd arrin aan lagaga horreyno maanseyahanadii ay isku gadaha ahaayeen aanay aqoon, isaga qudhiisuna uu isku dhaliili jiray, sidii allaha u naxariistay uu ii sheegay Axmed Cabdilaahi Qaalib in Adiir Qaraar oo 70-nadii qarnigii tegey la taliyayaashii guddiga af Soomaaliga ka mid ahaa, Salaan iyo isaguna ay jeer calan wada joogi jireen. Salaan iyo tixiisii gabowga ku saabsanaa aan wax idinka sheege waxaa la wariyey isaga oo markaa 70 kor u dhaafay inuu ka guursaday qolo waayo horena uu la xididay oo xoolo iyo xaraga doora isagana ka tegey uu xaggooda u tirinayay. wuxuu qabay dhibaat iyo wax kala tooni inaanay uga soo noqon wixii badnaa ee horey looga daduucay. taas isaga oo ka ciil qaba ayaa maalintii dambe waxaa loo soo sheegay inuu soo hadal hayey uuna ku soo socdo nin saydigiisa oo yaradoona lana waraar ahaa gabadhii uu dhowaanta aroosay. ma labalabayne haddiiba Salaan go'aan buu gaaray. wuxuu ku tashaday inaan maantaa wax hoola laga kaxayn, dabadeedna ninkii oo aan weli soo gaarin ayuu u tiriyey gabay uu kula garnaqsanayo, yaradkii laga idaayeyna uu ugu diidayo. gabaygaa iyo ninkii loo tiriyey oo Soomaalida xilligaasu ay labadaba leegleegsada u bixisay, wuxuu gabyaagu ku xusay 2 sababoodoo dartood aanu yarad ku bixinayn. sababta hore waa xoolihii faraha badnaa ee markaas ka hor uu bixiyey uuna ku tabaayey reerahaas uu shalayna xididka la ahaa maantana uu la noqday. sababta kalena waxay ahayd da'dii uu maantaa joogayoo aanu oggolayn dhahab xidid oo hor leh iyo hantidiisa oo uu sidii hore ugu cayaaro. wuxuu gabayga ku bilaabayaa arar qurux badan oo uu gabowgiisa kaga calaacalayo, arar ay ka muuqdaan dhowr erayoo uu ka bartay shisheeyihii ay isdheeheen sida lagjar, lahwi, looyar, loofar iyo laawist. markaas buu ku xijinayaa meelisadii uu da'da kaga sheeganayay, kuwaas oo tixda oo idilba ay Soomaalidu ku xusuusato. wuxuu yidhi luukaansi gabay faaraxow laakiin mar ahayna laflaf iyo lahwiga loo tirso iyo jaray lurkiisii iyo la'da xarafka laankiiyo ba'da baan looyar ku ahaaye nin awowgii loox ugu dhigay oo leelyan baan ahay. lagjar faranji niman baa akhriya, laawis iyo beene oo weliba laasima, intay lib isku moodaane anse waxaan u laaqimahayaa tixay ku luuqsaane mar hadduu lilaahida ka baxo waa lisaan jaban. halkan buu gabowga kaga hadlayaayo wuxuu leeyahay nin 20 buuxsaday adduun waa lagdamayaane haddaan anigu loo fari aqiin, haatan lowlabaye nin ciradu lamaanaha dhigto leelyan baan ahaye 60 12 baan kor maray, waana la hubaaye lafta dhabar raxaadkay dabciyo laafihii gacanta lubbidaydu leyr xalay ma ledin raadadiya taahe waa taala leemada indhaa araggu liitaaye haddaan luqunta beri taagi jiray liicday araxdiiyo nin laboonti sheegtaba saban laariyaa heliya liiqliiqad baan ahay sidii lula dabayleeda. meelisyada gabayga ugu dambeeya ayuu seedigiisa cad ugu dayrinayaa. wuxuu u sheegayaa isaga oo xooladoona inuusan kollaba ku soo lugo'in. wuxuu ku quusinayaa iska daayarad uu gabadha ka siiyee hadduuba xaggooda u soo kaco inuu isaga ka sugaayo awr ay hanti badani ku raran tahay oo dhibaat ah. war oo dhan ayuu ugu soo gebagabeeyey
laanjeertidaan qabo barbaar ladani waa mooge adigaan lamaa awr la wadin ama ligood keenin leegleegsadaha waa necbahay laanta dheer sida seedow haygu soo lugo'in lahasha waa ceebib kolka uu gaboobo waxaa qofka hadhiirihiisa ku yidhaahda dadka intii ay isku ayniga ahaayeen ee ay kol wada tabar galeen wuxuu waayaa intii ay isku guga dhasheen ama dhallinyaronimadii ay isku soo gaareen marba waxaa ku soo dhaca hebello uu aqoon jirayoo waa hore geeriyooday ama sidiisa oo kale da' bastood la ah isla salaan ayaa arrintani la soo gudboonaatay dabadeedna ka sheegtay dhab ayuu u murugooday kolkuu inta gaboobay uu waayey cid uu la jalbeebto waayihii uu soo maray cid la garanaysa oo uu kala sheekaysto isaga oo haddaba cadan jooga oo da'ah aakhiro iyo hawlaheedana ka walwalsan ayaa maalintii dambe waxaa u yimid dumar dhowrahoo magaalada lagu qabo waxay uga eer sheegteen gabyaa cabdilaahi baashe la ohan jiray oo isaga hablaha iyo salaanba ay xigaalo ahaayeen kaasoo u gebiyey qaar ka mida dumarkaasi raggii ay u dhexeen goobjooggii waagaasi siduu ku warramay wuxuu cabdilaahi nimankaa u gebiyey markay seedinimadiisa u aqoonsan waayeen ee intuu waxtar ka jeeqaaqay ay waxba uga soo dhici waayeen salaan wuxuu u yeeray ina baashe wuxuuna ka codsaday gabaygii uu tiriyey inuu ka noqdo hablaha iyo ragga qabana uu ka raalligeliyo taasoo uu ku diiday maalintaas ayuu tiriyey giddi gabayadiisa kuwa loogu jecel yahay midkood ha yeeshee waa tan la yidhaahdaa farta iyo meesha bugtaa is oge in yar oo gabayga ka mid ah ayaa waanada iyo canaanta cabdilaahi ku saabsan in badanna wuxuu u huray tilmaanta dhibaha uu gabowgu u keenay waa gabay alla kacabsigu ku badan yahay oo u eg kuwa carabtu ay shicru suhdiga u taqaan qaybta ararta oo uu gabowga kaga sheegtay ayuu ku yidhi cabdilaahi baashow cataqay gabay caraadkiisii carabkayga waataan ka jaray codashadiisiiyo maxaad cuni ha joogtee adduun caashaqii dhigaya sidaan cadadka biluhu u tirsaday waan cabsanayaaye cishahan hurdada fiiriyaa caam intaan jire calli yahay ciradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wadisaariya calool qulubtay waa yaab asaan cudur la tiicayne nafcan kuurka loo yimid rabbaa caaqibuu garanne qorra casarkii joogtaan ahoo ciidi garabkii iyo raggaannu isku ciidamis ahayn caadna laga waaye cidla yuurur bay dilay sidii cawsha dibadeedib allaha u naxariistee gabayadaa kadib in doora ayuu salaan sii noolaa wuu indhabeelay wuxuuna geeriyooday horraantii afartanadii qarnigii 20aad isaga oo inooga tegey gabayo iyo geeraaro dhaxalkeenna suugaaneed wax weyn ugu filan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa